كورن تليانيga iyadoo derby Milano oo caawa jiro kulamo kala waa la ciyaaray كورن kooxii Talyaaniga derby dalla Madonnina ayaa caawa lagu xaqiijin doona koox kubadda cagta Inter Milan oo ay 3 dhibcood u baahan tahay si ay xaqiijiso hanashada horyaalka Scudetto hal xil ciyaareed kadib maadaama ay Napoli ka soo dhaxgasho xil ciyaareedka la soo dhaafay Scudetto aad isku kooban noqonay maadaama Milankii ugu dambeeyay dabcan oo ahaa kadib hadana Inter Milan qaad marka caawa derby dalla Madonnina jira labada kooxoodna waa kooxaha weligood loo xifaaltan uu ka jiray derbiyada waxaad moodaa xasano in xalay caawa la ciyaarayo adduunka 3 derbi oo kaliya ka jirto waliba 2 derbi ahaayeen derbiga saddexaad wuxuu noqday El Clasico tusaale El Clasico ama Super Clasico laba Monera oo ka dhaco gudaha dalka Argentina una dhaxeeya kooxaha Boca Juniors iyo River Plate xalay waa la ciyaaray asna wuxuu ahaa Super Clasico adduunka ugu weyn ومدة كوين كلاسيكو كوين ها مدة كوين الكلاسيكو iyo derby dalla Madonnina midda labaadna adduunka ugu weyn waa kulanka u dhaxeeya kooxaha Inter Milan iyo AC Milan asna derby dalla Madonnina ayaa la marka loo fiiriyo taariikhda kulankan uu soo jiray sida uu xamaasadeysnaa sida labadani kooxood xifaaltanka soo jireenka u dhaxeeyay inta sano uu ahaa qarniyaal ayuu ahaa marka labadaas derby ayaa jirtay 2006 2000 markii Ronaldinho iyo Messi ay Barcelona u soo kaceen intana laacibintii weynaa ee Classico ay joogeen oo Real Madrid Beckham Salamida Ronaldo Wayne Raul dadkaas ayaa wuxuu u noqday magaca El Clasico oo xogaa xifaaltanka kor u qaaday marka labadaas derbi ay adduunka si rasmiyan loo tilmaamay inay yihiin derbiyada adduunka ugu adag derbi uguna waqtiga dheer derbiga saddexaadna waa El Clasico derbiyadan kaleentood oo wax hadda soo baxay oo magacyadan saxaafada media ay adeegsato media adeegsato sidoo kale Ingiriiskana hal derbi ka jira waana Liverpool iyo Manchester United derbiyadan kaleentood wax adiga taariikh ma lahan marka loo fiiriyo kooxda Man City Man United oo kaleentood taariikh ma laha inkastoo hal magaalo ay ka wada dhisan yihiin haddana taariikhdu ma ahayn laba koox oo isku awooda ma ahayn waa la kala awood badnaa marka hadeertaan xogaa waxaad moodaa in xifaaltanka derbiga uu xogaa soo adkaanayo marka Milan iyo Interna caawa ayaan sugi doonaa natiijahan wax ka soo baxa Milan soo ogsoonahay toddobaadkan waxa laga soo reebay tartanka Europa League Roma ayaa ka reebtay waxay rajeynaysaa marka inay ku sii madax degsato oo horyaalka ay dib ugu sii dhigto kooxda kubadda cagta Inter Milan ilaa iyo toddobaadka dambe ugu dabaal degin aad weyn oo laga adkaanay Talyaaniga kulamo kale oo la ciyaarana way jireen isleeyahay iyadoo Juventus barbareen gashay Kyler 2-2 iyadoo waliba laba gool oo penalty laga dhaliyay mar dambe labada gool ay soo barbareeyeen marka Juventus xil ciyaareedkan waa xil ciyaareed aad u fiican ma sababtoo iyada booska laad ku jirtay Milan ka xoogtay booskii saddexaad aba laga sii xoogayo Bologna aan ogsoonahay sanadkan inuu wado ninkii reer Talyaani ee dhalasho ahaan ka soo jeeday dalka Brazil ee Thiago Motta inuu kooxda Bologna hogaaminayo oo waliba sanad ciyaareedkii hore booska 17aad kaga jirtay laakiin sanadkan waxa moodaa in booska afraad tartanka Champions League waliba taariikhda waa markii ugu horeysay xasan oo ay imaan doonto hadii ay hesho waliba ogow dalka Talyaaniga sanadkan kooxaha Yurub oo dhan wuxuu kaga fiican yahay marka loo fiiriyo tartanka Champions League tirada la siiyay 5 koox oo la hubo ay xil ciyaareedkan u imaan doonto tartanka UEFA Champions League marka Premier League oo kale haday noqon lahayd La Liga oo kale Bundesliga soo labayn doono asna 5 loo ogolaan doona laakiin wadanka sida tooska oo loo xaqiijiyo oo hubo waa dalka Talyaaniga marka sanadkan Bologna waxay noqon doontaa koox ka qayb galayso waa ka soo wadaareen laakiin dhibcahooda ayaa ka badan horyaalada iyo Conference League ay joogaan oo Atlanta iyo Fiorentina iyo Roma iyo dadkaas wali qaraabanayo oo dhib haysta marka sanadkii horena xasuuso 3 finaal ay joogeen Champions League oo Inter Milan joogtay Roma oo Europa League iyo Fiorentina oo Conference League marka xogaa Talyaaniga waxaa maya Talyaaniga mara waxa la dhihi jiray xasanow waqtigayga ma siisa kubadda cagtooba ahaaba kuratul janna waxyaabaha magacyo ahaan ama kubadda cagta jannada kamid ahayd calcio in the wall ama calciodii adduunka meesha la jiray ayada ahayd magacyo badan jiro oo aanan hadda xoogaa maskaxda ku haynin laakiin markaan computer fariisto waxa ku tirin kara in ka badan 100 magac oo horyaalka dalka Talyaaniga lagu amana si lamida laakiin waa laga la wareeyay
aad weyn sala mida marka loo fiiriyo Diego Armando Maradona xilligiisa ugu horeeyay uu imaanay kubadda cagta dalka Talyaaniga Spain oo ka soo ciyaaray markuu halkaas yimaado wuxuu yiri kubadda cagta dalka Talyaaniga kulankiisa ugu horeeyay garoonkii caanka ahaa loogu magac daray Bentagodi Stadium oo godka naarta ayuu markaas wuxuu yiri haddii aad rabto inaad kubadda cagta dhadhankeeda aragto meel aad rabto inaad ku darinto Talyaaniga ma waa la weydiiyay markaas wuxuu yiri maxaa dhacayno naar baa dhahay naar kubadda cagta markii sababtaas oo leeyo dhadhanka marka way adkeyd oo kubadda adaga la ciyaar jirtay sababtoo ah ciyaaryahanada meeshaas ka soo baxay iyo kooxii xilligaas waxay ahayn kooxa aad u badan aad u fiicnaa ciyaartooydoodii kubad magaceedii iyo meesha laga soo gaaraba halkaas ay ahayd marka Talyaaniga sanadaha dambe rajeenayna wadadaas ku soo laabtaan iyo Ingiriiska saxaafadiisa ay kala wareegeen sheekooyinkaas amaantaas